siyaasi Cumar Daahir Cilmi oo kamid ah siyaasiyiinta mugga iyo miisaanka ku leh gobolkan Awdal ayaa maanta ka jawaabay hadal ka soo yeedhay duqa Boorama Sleebaan Xasan Xaddi oo ku aadanaa saami qaybsiga taas oo si weyn loo hadal hayay saacadihii ugu dambeeyay isagoo fariin qoto dheerna u diray duqa Boorama waxana hadaladiisii kamid ahaa inuu joogo ma jeclayn laakiin waxa weeyii isaga nusqaan ku tahay ninka isaga saamigu ka maqan yahay Sleebaan keligii ma Sleebaanna kala jira oo noognahay oo madaxweynaha ku yiri waxba naga maqna been bay u sheegayaan kuwaas madaxweynaha been bay u sheegayaan waa niman tirsan dhalinyarta indhoogu way farabadan ilmiga anagu dareenkoogan ku shaqeynayna maanta iyaga taladoodaanu ku soconaa wadi ka arkay waxa soo wada bixin waa xadanaynayaan maanta ama ay diidan yihiin arrinta cadaalad darro ayaa ka socota maanta golayaasha sharci dejinta iyo golihii xukuumadda iyo garsoorkii socda marka wax weyn ninka reer Awdal sidii baa doorashada lagu galaya yaan waxba ina bixiyo been ku sheegin baan u leeyahay Cumar Daahir Cilmi oo hadalkiisa sii wata ayaa sidoo kale waxa uu ka jawaabay hadalla ka soo yeedhay waxa uu ugu yeedhay siyaasiyiinta ka soo jeeda gobolka Maroodijeex isagoo oo sheegay inay marnaba aqbali doonin shacbiga ku dhaqan deegaanada galbeedka iyo bariga Somaliland inay marnaba aqbali doonin in sida lagu galo doorashada oo sida uu hadalka u dhigay siyaasi Cumar Daahir Cilmi oo rimahaasi ka hadlaya waxa hadaladiisii kamid ahaa waxa kale oo aan doonayaa halkan inaan jawaab kooban ka siiyo nimanka siyaasiyiinta ay ka soo jeeda beesha dhexe ee difaaca ugu jira Sadbursiga ee aan xalay arkay Cabdilaahi Jawaan oo in badan ku soo daalay komishanka oo leh sidaanaynu dawlad ku nahay leh war marna kama aqbalayno dhalinyartu way soo jeedaa 99% waan ku kalsoonahay in maanta ay gacan birle kaga hortagayaan haddii saa doorashada lagu galayna doorashada qabsada idinkuma haysano isku mashxarada laakiin annaga saami bursiga ad wadaan waxaan aanu ku galayno doorasho maaha waxana weeyii wax la leeyahay maxkamadda loo gudbinayaa maxkamadda dastuuriga ahi horay u xukuntay in xeerkani aanu ahayn mid shaqaynaya oo one time use ahaa mar kaliya 2005 caqabada laga gudbaa leeyahay maantana wax xeero maanta ay leedahay doorashada wakiiladu oo lagu galayo ma jiro inta maxkamadda dib loogu celiyaa ayay maxkamaddu burinaysaa xukunkeedii hore mid ahaa 15 xubnood ay kala hogaaminayeen gudoomiyaasha saddex xisbi أو مدحون السيلانية وديبي وقصة البحيري بان كمدها waxay ka socon weeyay saddexdan nin ee maanta xisbiyada hogaaminaya isku beesha iyaga beeshooda laga cabanayo waxa weeye hogaanku waa inuu cadaalad ilaaliyo waa inuu dadkooda runta u sheegi karo war maxaa looga gabanayaa miyay yiraahdaan kuraasta uga kaca dadka oo si feer ah loogu qaybiyo marka waxaan ku soo gabagabeynaa madaxweynaha maanta talada haya inuu arrinta aanu dheersan uu si mug loo galo si Soomaaliland ay u noqoto qaran jira oo lagu wada kalsoon si kastaba ahaatee hadalkani ka soo yeedhay duqa Boorama ayaa isagu wuxuu lafjab ku noqday gebi ahaanba dadka ku dhaqan deegaanada galbeedka Somaliland Jaamac Xuseen Jaamac Dade Boorama